marka waxay dhaheen laasi 3 bilood baan sokortaada jeegaraynay waxay dhaheen kamithla ruuxan sokor ku dhicin oo kale ayaa tahay marka maxaan samaysay oo marka runtii xaqiiqadii uma aanan sheegin daawadan mataqaana aan cabayay laakiin waxaan idhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu doctor jaamac waan ku salaamayaa salaanta islaamka ayaan kugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu doctore waxaa waaye khabaar farxadlaan wadaa alxamdulilaah ilaahay baa mahadda leh ka sokowna adigaan mataqaanaa kuwa abaal badan igu yeeshay oo aan ku mahadnaqaya doctore xanuunkii waxaan aada ii hayay sokortaas oo mataqaanaa aan irbado qaadanayay tape 2 bay ahayd laakiin way igu daahday oo muddo dhan baan anigoon ogeyn dhakhtarkuna uusa ogeyn bay igu yar daahday oo si khalada ay u yar dhacday intay dhiigagga iga qaadeen bayna jawaabteydii ii sheegin dhowr bilood kadib markaan ku noqday haddana sidii u kacsan tahay baa markaa irbado lay qoray 2001kii ilaa mataqaanaa ilaa iyo 2001kii 2002gii 2003gii waxaan qaadanayay irbadaan qaadanayay alxamdulilaah hadda 2 wiig ka hor ayaa waxaa layga qaaday dhiiggii mataqaanaa sokorta oo jekinkii caadiga ahaa laakiin intaan jekinkaa layga qaadin xaqiiqada markaan runta kuu sheego daawadii waan iska joojiyey waayo waxaan haystay mashiin yar oo sokorta lagu cabiro markaan daawada aan waxoogaa qaatay oo aan daawadan aan 3 bilood aan qaadanayay ayaan iska joojiyey mataqaanaa ayaan anigu iska joojiyey anoon dhakhtarkii tegin oo waxoogaa xagga caafimaad ka yar dareemay markaan yaro cabiro sokorta ila fiican tahay ayaan mataqaanaa daawadii iska joojiyey daawadii markaan iska joojiyey daawadan mataqaanaa herbalkan iska qaadan jiray daawadii herbalka markaan muddo hadda sidaas aan u waday ayaa jekinkii caadiga ahaa mataqaanaa iyagoo mataqaanaa caruurtao dhan ay igu qaylinayna aabow mataqaanaa daawada qaado keliyaha wax ku noqon karaaya oon leeyahay abo maya waan dareemayaa inaan mataqaanaa sokorteeda waan cabiraayo ma kacsane waa caadi bay sheegaysaaye oo mataqaanaa bal waktigaygan iska sugaya marka waxaan maray jekinkii caadiga ahaa baan maray dhakhtaradii markaan dhakhtarkii daawadii aan qaatay dhiiggii ay iga qaadeen ayay mataqaanaa wiig kadib ayay aduu 10 casho kadib bay ballan ii sameeyeen markaan tegey bay mataqaanaa dheheen niyahow sakareedkaaga noo sheeg bay igu dheheen maxay taad ka wadaan baan ihi sakareedkaaga noo sheeg marka waxay dheheen dee irbadaad qaadan jirtay diabetic bay ahay daawo korkaaga sokortiina korkaaga way ka baxday oo mataqaanaa 3 bilood baan fiirinay sokortaada jekin ku sameynay oo hadda aqoontii baa dee korodho dhiigga markay kaa qaadaan waxay awoodayaan inay arkaan last 3 months sokortaadu siday ahayd hadday kacsaneed iyo hadday mataqaanaa ay normal u fadhiday ayay mataqaanaa ayay arkayaan marka waxay dhaheen last 3 bilood baan sokortaada jeegaraynay waxay dhaheen kamithla ruuxan sokor ku dhicin oo kale ayaa tahay marka maxaan samaysay oo marka runtii xaqiiqadii uma aanan sheegin daawadan mataqaanaa aan cabayay laakiin waxaan idhi mataqaanaa waan iska dadaalay oo daawooyin mataqaanaa waxyaalo mataqaanaa noloshaydan wax ka bedelay baan ku idhi herbal inaan daawadan qaato uma aanan sheegin laakiin waxaan ku idhi mataqaanaa noloshaydan wax ka yar bedelay mataqaanaa sidaas mataqaanaa waxyaalo badan oon cuni jiray baan iska daayay runtiina way jirto waxyaalo badan oon cuni jiray oon iska daayay sida bariiska oo kale iyo ah waxaan waxoogaa dhaajashkaygan wax ka bedelay marka waxay dhaheen de waa congratulation bay dhaheen mataqaanaa waxaad mataqaanaa
waan kaa joojinay daawadii mataqaanaa daawo dambe ma lihid, waxay tahay korkaagu waxay dhaheen waa nadiif bay noqday. marka saasay igu soo mataqaanaa igu soo mataqaanaa aan ku soo tegey. waxay dhaheen mataqaanaa wax daawo dambe lagu qorayo ma laha, prescription dambe ma tihid. marka doctor waa markaa aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa, ilaahay baa mahadda iskale, adigana mataqaanaa waan kuu ducaynayaa, waan kuu mahadnaqayaa. mataqaanaa waxaa weeye daawadan sokorta oo kale dadku aad ba ula dhiban yahay, wax mataqaanaa iyagu xal uma hayaan. waxaa waaye un dhiiggaas markay hadba kacoon bahashaasaa lagu dejinayaa. dhiiguna markuu mar walba uu kaco marka dambe dadku kelyuhu tiraa, kelyaha fadhiista. waxaad maqlaysaa ruuxii kelyihii baa mataqaanaa fadhiistay oo mataqaanaa bahashi dhaqid baa loo samaynayaa. marka ilaahay mataqaanaa khayr ha ku siiyo. dadka Soomaaliyeedna waan kula talin lahaa, dadku badankooda dadka de waqti wax iska noqdeen moodaren buu iska noqdo, wax walba wuu isbedelo. dadku wixii uun hadba uun gaaladu samayso ayay iska jeclaadaan oo aaminaan. anigu haddeertan intaan qaadanaya carruurteedu way la dagaalamaya, abo waxaan iska daayo daawadaada qaado, abo waxaan iska daayo daawadaada qaado, abo waxaan qoryaha iska daayo daawadaada qaaday ku hayeen. aniguna maxaan dhahay abo mataqaanaa waan isgaranayaa, nin weyn baan haye waan isgaranayaa mataqaanaa kuwanan anigu aan rumaysanahay, waxaan waa kiimika ay siinayaan, waxaan igama bi'inayo, dhiigaygana waan cabirayaa. haddaan arko inuu kaco daawada waan qaadan, haddaan arko inuusa kicinna waan ma qaadanayaan ku yidhi mataqaanaa waa taydan baan ku wadayaa. marka waa ku guuleystay alxamdulilah. doctor jaamac waan kuu mahadnaqayaa. anigu waxaan deganahay waddanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Birmingham baan deganahay. mataqaanaa aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa dhammaanna dadka xanuunkan qaba. waxaa kaloo aan qabay oo asagana aan mataqaanaa ummadda u sheegaya, waxaan qabay gaas laabjeex badan baan qabay, oo habeenkii markaan mataqaanaa aan seexdo aan mataqaanaa la soo kici jiray, mararka qaarkood igu soo gadoomi jiray. hadda ramadaanka hadda hayoo dhan hal maalin layma laabjeexin, hal maalin laabjeex ma dareen. berigii horena ramadaanka iska daayay marka caadiga ah ayaa markaan habeenkii seexdo ayaan soo kici jiray, caano kabo biyo kabo mataqaanaa caloosha ku hureysa. marka alxamdulilah wixii oo dhan waa iga laabjeexiina ilaa haddeertan waxaan dareemaya male. goor u baxayba garan mahay, saan aniga un laabjeexaynin, oo wixiiba uu isbedelay un, oo intaan seexdo anigoo haddana caadi ah oon afkayga candhuuf adag lahayn, oo mataqaanaa aan xab igu soo gadoomin, anoo soo kaco un baan is arkaa. marka dhinacaasna wuu iga caawiyey, oo mataqaanaa laabjeexii alxamdulilah muddo mataqaana inta hadda daawadan qaadanayay iyadana iskumaana arkin, wuu iga tegey. ilaahina waxaan ka baryaya inuu saas kusoo noqon, inuu saas uu ku tago. marka dhammaan waxaan kula talin lahaa, anoon runtii xayeysiinaynin, doctor jaamac mataqaanaa dee dan unbaa ii geysay, anigoo mataqaanaa waxyaalahan waxba iga tari waayey unba waxaan bal dadkii Soomaalida ahaa iyo dhirtii un dadkii yaqaanay raadi unbaa ilaahay qalbigayga soo geliyey. maalin un baan arkay un ku arkay un facebooka ku arkay mataqaanaa nin daawooyinka Soomaaliya uu mataqaanaa uu doctorka meesha uu soo geliyey ayuun baan arkay, anoon aqoonna u lahayn, meeluu joogaan ogeyn. markaa taleefonkii un baan ka wacay, sidaasaan mataqaanaa aan isku helay. alxamdulilah waan ka faa'iiday, daawadiisii mataqaanaa way anfacday, aad iyo aad baan mataqaanaa ugu caafimaaday. ilaahay baa mahadle. dadkana waan kula talinayaa daawooyinkan sokortoo kale hadda waxaa waye nimankan wax daawo uma hayaan. daawadaa la qaato waxaa weeye way dejinaysaa un waa mataqaanaa korkaagi waxba ma sameynayo, iyagaa insuliinkii ku siinaya korka inuu sameeye la rabay, qanjiradaadu ay sameeyaan oo bankariskaaga rabto inay sameyso ayay iyagii kugu caawinayaan. marka waxaan kula talin lahaa daawooyinkan mataqaanaa dhaqanka ah ee dhirta ah ee side effectigoodana uu aanban lahayn, hadduu leeyahayna uu aada u yaryahay, mataqaanaa doctor jaamac inaad la xidhiidhaan mataqaanaa oo aad ka qaadataan mataqaanaa daawooyinkaas, iyo kii kale oo ruuxii kaleoo Soomaali oo taqaanaanba oo dhirta sameeya. dhirtu way ka faa'iido badan tahay waxyaalahan kimikada ee la qasay.
aad baan mataqaanaa oogula kolleyba tala ahaan ruuxii aan maanta aqaano oon siinayo waan siin lahaa inuu mataqaanaa ilaahay ha ku caafiyo. doctoorkana waan u mahadnaqayaa, xayeysiinna igamaah, ilaahay baa igu og, mataqaanaa wixii aan mataqaanaa anigu aan dareemay baan ka hadlayaa. marka insha allahu mataqaanaa ilaahay baan waxaan ka baryayaa inuu mataqaanaa uu caafimaadka idinkana idinku siiyo, mataqaanaa oo ilaahay daawo idinkugu daro intii xanuunsan. doctoorkana ha lala xidhiidho. mataqaanaa waxa waaye haddaan mataqaanaa doctoorka mataqaanaa uu mataqaanaa doctor adiguna waxaan kuleeyahay sii dadaal. mataqaanaa xanuuno badan baa jira oo mataqaanaa oo kale oo dadka haya mataqaanaa soomaalidu mataqaanaa dee adiguna halkaaga dadaalka kasii wad. ummadda soomaaliyeed waxa weeye dowladihii ka burburan oo iska dhibaateysan kuwii xataa xanuunadan qaarkood inagoo dowladihii dadkii qurbaha joogay baa xataa daawooyinkii mataqaanaa xanuunadan qaarkood aan waxba ka tareynin. marka aad iyo aad baan kuu salaamaya doctor jaamac, waan kuu mahadnaqayaa. jasaaka allahu khayr, ilaahay ha kaa abaalmariyo. ummadda soomaaliyeedna mataqaanaa inta xanuunsanna ilaahay xanuunka ha ka qaado. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waana kula talin lahaa ruux walba oo sokortaas hayso iyo gaaska haystaba iyo wixii kaloo hadda hayaba, ruux walba doctoorka wuxuu waramo ha la sheekaysto. mataqaanaa khayr iyo caafimaad baan kuu rajeynayaa doctor adigana. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.